Bismillah. Maanta casharkeena wuxuu ku saabsan yahay hooyooyinka sokorta qaba markay uurka yeeshaan waxyaabaha laga rabo inay ogaadaan ama sameeyaan si ubadkooda u dhasho isagoo caafimaad qaba. Macaanku wuxuu saameeyaa hooyada iyo dhallaanka xilliga uurka wuxuuna u keenaa dhowr ciladood waliba haddii aysan kontroolneyn sokortooda sida in hooyadu dhasho cunug dhicis ah, in cunuga ku dhex weynaado oo darteed qalliin u gasho ama kafka ku dhex dhinto, in cunuga cillad neefsashada ah ku dhasho ama soo baxo isagoo sokortiisu dhacsan tahay taasoo saameyn maskaxeed ku reebi karto dhallaanka haddii aan lagu baraarugin isla markiiba. Sidoo kale maadaama uurka uu bedelo hormoonada jirka waxaa dhici karta in daawadaadii hore xakameyn weyso sokorta una baahatid in la bedelo ama cirbad insulin lagu qoro, sidoo kale cuntadana qorshe loogu sameeyo. Si dhibaatooyinka aan soo xusay looga hortago waa in hooyada macaanka qabto markay ogaataba inay uur leedahay in dhakhtarka la xiriirto si loo ogaado heerka macaankeeda uu marayo, inuu dhib ku hayo jirka iyo in xanuuno kale u qarsoon yihiin kuwaasoo ka dhasha macaanka. Arrintan hooyooyin badan uma arkaan ahmiyad weyn oo iyagoo sokortoodu kacsan tahay ay fool u yimaadaan isbitaalka, taasoo hooyada iyo dhallaankaba halis gelin karta. Fadlan faafi fariintan oo la wadaag bulshada waana mahadsantahay.